yaabaa inaad aqoon ama aanad isticmaalin codes sida kuwaasoo ku kaydsan ama aad ku isticmaali karto mobilkaaga smartphone-ka ah amaba aad iminka isticmaasho aad si usoo marto istabis dhaadheer oo waqti badan kaa qaata. haddaba waxaan muuqaalkan kula wadaagayaa codes aad ku isticmaali karto mobilkaaga kuwaas oo aan kugu qaadanayn waqti fara badan, sidoo kale kuu qabanaya shaqooyin la yaab leh. inta badan codeskan waxay ku shaqeynayaan mobilada ay ku jiraan operation systemyada kala ah Androidka iyo sidoo kale OS-ka. markaasi waxaad ku isticmaali kartaa haddii aad haysato mobiles operation system ay ku jira ay kala yihiin OS iyo Android. koodhka u horeeya haddaynu soo qabanno, koodhka u horeeya waxa uu kaa caawinayaa inaad adoo call ku jira ama qof la hadlaya uu call kalena kusoo geli karo, ama adoo wicitaan qof la hadlaya uu wicitaan labaad kusoo geli karo, sidoo kalena aad ka qaban karto. koodhkan si aad u furato waxaad garaacaysaa xidig 434 gees ama xidig 434 gees. kadib markaad oo ka tiraaho waxa uu kuu furayaa inaad sidoo kale ka qaban karto qof adigoo wicitaan hore ku jira. saad isaga xidho waxaad garaaci kartaa koodhkan kale ee ah xidig 434 gees. kadibna wuxuu kaa xidhayaa barnaamijka isaga ahaa. sidoo kale koodhka labaad waxaynu kusoo qaadanaynaa inaad lambar lagaa garaaco mobilkaaga si aad isaga xidhi lahayd, ama in lambar uu qof kaa garaacdo mobilkaaga si aad isaga xidhi lahayd, mobilkaaga guud ahaan aad uga xidhi lahayd in lambar laga garaaco. waxaad garaacaysaa koodhkan ah xidig 314 gees. kadib markaad oo ka jiraaho waxa lagaa xidhi doonaa in mobilkaaga wax lambar ah laga garaaco. sidoo kale haddii aad doonaysid inaad furato waxaad garaacaysaa xidig 314 gees. markaasi waa lagu furayaa. sidoo kale koodhkeenan kale waxaan kusoo qaadanaynaa sida mobilkaaga aad qof ugu xawili karto ama aad u ogaan karto mobilkaagaas inuu qof ku xawilan yahay. waxaad garaacaysaa koodhiska ah xidig 4 gees 614 gees. kadib waxaad odhan kartaa okay baad odhan doontaa. kadib wuxuu kusoo saarayaa haddii uu mobilkaaga ku xawilan yahay mobil kale. sidoo kale si aad isaga xidho in mobilkaaga uu ku xawilan yahay mobil kale, amaba aad ogaato in mobilkaaga ku xawilan yahay mobil kale oo aad doonaysid inaad iska xidho, iyana waxaad garaacaysaa koodhkan kale ee ka duwan kii hore xidig waxaan leeyahay 4 gees 4 gees kale 214 gees. kadib waxaa lagaa xidhayaa koodhiskii ahaa in mobilkaaga uu ku xawilaa mobil kale, ama barnaamijkii ahaa mobilkaagu inuu ku xawilan yahay mobil kale. sidoo kale koodhka u dambeeya aan soo qaadanaynaa waxa weeye inaad qaab fudud ama si fudud aad ku formaat garayso mobilkaaga adigoo aan soo marin istabis dhaadheer ama istabyada dhaadheer iminka aynu marno ama aynu soo marno adaan soo marin, inaad si fudud aad ku formaat garayso mobilkaaga wixii allaale wixii ku jirayna aad ka saarto. waxaad garaacaysaa koodhkiisan ah xidig 2767 ama 2767 4 gees 3855 4 gees. kadib waxaad odhanaysaa okay. kadib wuxuu formaat garaynayaa all mobilkaaga wixii ku jiray, data ha noqdaan, sawir ha noqdaan, waxyaabihii mobilkaaga kugu jiro dhan markaasi waa u formaat garaynayaa. laakiin waxaan kugula talinayaa inaad isticmaalin koodhkan haddii aanad markaasi u qastiin ama aanad ujeedadu aan ahayn inaad mobilkaaga formaat garayso. sidoo kale koodhkan labaad waxa uu la mid yahay koodhkii hore, isna wuxuu formaat garaynayaa mobilkaaga haddii uu kaasi kii hore kuugu shaqayn waayo
mobileska androidka ama OS-ka operationada ku jira iOS iyo android kala yihiin, waxaad isticmaali kartaa kan labaad oo ah 4 * 6 * 4 * 9 * 6 kan haddaad isticmaasho sidoo kale waxa uu format garaynayaa dhammaan wixii mobilkaaga ku jiray, ha noqdaan macluumaad mobilka kugu kaysnaa, sawirro iyo nooc kasta oo mobilkaaga ku jiray. Waxa uu ku celinayaa sidii uu shirkadda kaga soo baxay ama sidii adigu aad ku iibsatay markaasi. aad baad u mahadsantihiin. Baan idin salaamaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.